si aad wax badan u ogaato. waxaan muuqaalkan kuugu soo koobaynaa shaqo baaxad leh oo ka qabsoontay Somaliland lixdeeda gobolba sanadkii galbaday ee 2022. intaad barnaamijkan daawanaysana waxaan toos ku geyn doonaa goobo xiiso badan oo lixda gobolba ku yaal. dhaqaalaha dalkan badankiisu wuxuu ku xidhan yahay dhoofka xoolaha, taas oo taariikh ahaan iyo dhaqan ahaanba ahayd tiirka ugu muhiimsan ee dalka dadkan intiisa badan. halbeega dhaqaale ee GDP-ga Somaliland ayaa lagu qiyaasaa in ganacsiga dhoofka xoolaha nool uu ka yahay celcelis ahaan 60% ilaa 85%. dekedaha dalku waxay doorka ugu muhiimsan ka qaataan fududaynta ganacsiyada caalamiga ah iyagoo marin u ah soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha. waxaanay kor u qaadaan dhaqaalaha waddanka iyagoo abuura shaqooyin, dakhli buuran oo soo xorooda iyo iibgeynta tacabka dalka. Somaliland horumarkeedu waa mid guulo ku socda, waxaanay leedahay bad dheer taasoo ay ka buuxaan khayraadka dabiiciga ah ee ugu horeeya kalluunku. waxayna fursad u siinaysaa ka ganacsiga kalluunka iyadoo iminkana isu diyaarinaysa inay kobciso suuqa ka ganacsiga kalluunka mustaqbalka dhow. haddaba yaa Somaliland uga mas'uula ilaalinta caafimaadka xoolaha? imise dekedood ayay leedahay Somaliland maxaase ku cusub sanadkan? sidee ayay uga faa'iidaystaan kalluumaysatadu badda dheer ee dalka? gacan intee leeg ayay kalluumaysatadu ka heshaa dawladda? sidee loogu adeegaa dadka xoolaha dhaqda ee u baahan kaalmada dawladda? habcaynkeeya ayay Somaliland uga gaashaamataa abaaraha soo noqnoqda iyo masiibooyinka dabiiciga? barnaamijkan waxaad ku daawan doontaan daawada weydiimahan jawaabahooda innaga oo ka qiyaas qaadan doona sanadkii tegay ee 2022. waxaan haddii aan la yidhaahdo aad ka heli doontaan xogtan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga shaqada ay qaranka u hayso, hadday xoolo tahay, hadday tahay caafimaad xoolo, hadday adeegyada kale bulshada u hayso tahay, hadday kalluun tahay. sidaa u barataan oo lana socotaan waxa ay u qabato qaranka ama ugu qaabilsan tahay ayaan ugu talagalnay. wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ayaana qaranka uga mas'uula caafimaadinta xoolaha, dhoofintooda iyo ka faa'iidaysiga khayraadka badda oo uu kalluunku ku horeeyo. aan idin kala baxo wariye Liibaan Cismaan iyo injineer Maxamed Shire oo xogta barnaamijkan idiin soo koobi doona haddii alla idmo ee daawasho wacan. waxaa la daweeyey sanadkii 2022 xoolo tiradoodu gaadhayo 4,737,943 neef oo isugu jira lo, ari, geel. waajibaadkayga waxaa ka mid oo kale in la helo xoolo caafimaad qaba si loo helo cad iyo caano lagu kalsoonaan karayo. saa darteed wasaaraddu waxa ay samaysay 3 shaybaadh oo laga fuliyey magaalooyinka Gabiley, Boorama iyo Laascaano. 3daa waxay qaban doonaan dhammaan waajibaadkii uu lahaa shaybaadh, waxaanay baari doonaan cudurrada kana hortegi doonaan inta aanay faafin. waxaa jira oo kun abaarihii soo noqnoqday, waxaa jira seerooyin la xidhay iyo meelo aan ugu talagalnay in aanu calaf ugu beerno xoolaha. waxaa ka mida wajaale oo aanu ka samaynay meel loogu beero calafka xoolaha. intii horeysa way soo go'day. dadka waxaan lagu tababaraa in ay mishiinaan u keenaa oo waxaa lagu tababaraa in ay sameeyaan calaf oo ay u diyaariyaan xoolahooda ayaa loo diyaariyey. waxaa kale oo jira ilaa iyo 63 xarumood
وعافمات حولها لوgu talagalay oo dawadii taalo oo dhakhaatiirtii iyo dadkii caafimaadka xooluhu ay joogaan shaqaalihii ay joogaan oo iyaguna wixii halka deegaanka markiiba ka gaadha waxa jira iyaguna 510 form oo lagu soo ururiyo cudurrada degal fadhiga ah oo ay ka mid yihiin shilinta caalka bahashan ilaa cambaarta cabeebka waxyaabahaas oo kale waa cudurrada degal fadhiga foomkaas 510 form baa lagu soo ururiyaa dabeedna halkaas waxa la gartaa deegaan waliba wuxuu leeyahay cudur degal fadhiyo u gaara halkani waa gobolka saaxil oo ah gobolka ugu muhiimsan marka laga hadlayo xoolaha nool iyo kalluunka magaalada Berbera ee caasimadda gobolkani waxa ku yaala goobaha ugu muhiimsan ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga waxa la daweeyay sanadkii tagay ee 2022 xoolihii ugu badnaa sanadkan dhamaaday waxa la daweeyay xoolo gaarsa ilaa 504,000 iyo 812 neef xoolaha xagga gobolka saaxil waxa sidoo kale la dhoofiyay xoolihii ugu badnaa ee ka dhoofa dekedda magaalada Berbera wadamada loo dhoofiyay xoolaha waxa kamid ah Yemen, Oman, Bahrain, Sacuudiga, Imaaraadka iyo Qatar waxa kale oo ilaahay inoo fududeeyay sanadkan oo ahaa sanad aanay xooluhu mar qura istaagin inaynu dhoofino xoolo gaadhaya 2 milyan ilaa iyo 30,000 oo neef oo isugu jira adhi geel iyo lo ayaynu dhoofinay sanadka intaasoo xoolahaasoo dhan loo dhoofiyey oo hal neef aan naga soo noqon alxamdulillah sanadkan intii lagu jiray oo hal markab ha noqoto ama hal noqoto sanbuuq ama hal doon ha noqotoba wax agyaalo wax soo noqday oo alxamdulillah waxba kama soo noqon ma jirto xoolahaasi oo si fiican loo ilaalinayay caafimaadkooda xagga maxjarada xagga shaybaarka xagga talaalkooda iyo xagga weelka qaadayay xoolahaba dhanka kale waa markii ugu horeysay taariikhda Soomaaliland ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Soomaaliland ay xafiis ku yeelato dekedda magaalada Berbera shaqooyinka uu qaban doono xafiiskani waxa kamid ah xafiiskani wuxuu qabtaa wuxuu inspektoreeyaa xafiiskan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysigu ay ku leedahay dekedda Berbera wuxuu hubiyaa oo inspection ku sameeyaa xoolaha dekedda soo galaya badqabkooda iyo caafimaadkooda wuxuu maraakiibta saaraa dhakhaatiirta raacaya markabka xoolaha qaadaya ee tigay Sacuudiga tegitaankooda iyo soo celintooda wuxuu isku xidhaa laamaha dawladda sida customka maaliyadda DBWL SBI-da wakaalada biyaha dawladda hoose agentiska xoolaha rara wakiilada iyo wakiilada ganacsatada ayuu wuxuu ku xidhaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga wuxuu isku xidhaa shuruudaha wadannada xooluhu u dhoofiyaan ay soo dalbadaan iyo maxjaradii xoolaha caafimaadinayay ee hubinayay kuwa vaccine u baahan talaalo iyo kuwa testiyo u baahan in loo baaro wuxuu confirm gareeyaa oo xaqiijiyaa weelka maalinta dhoofaya sidii u kala horeeyaan isagoo ka qaadanaya ka tixraacaya boort blanka dheedka ay soo galagaleen weelkaas sidoo kale wuxuu jeegareeyaa weelka xoolaha weelka qaadaya sida markabka iyo wixii lamid ah iyo doonta arrintaana waxaa bulshada leh wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga waxaa jira qayb kale oo ay leedahay wasaaraddu oo dekedda ku taalla oo ah hangarro xoolaha lagu nasiyo oo kuwaasna ilaalintooda iyo ka warqabkooda ay aan gacanta ku hayno macjaradu waxay qabtaan shaqooyin muhiim ah waa goobta lagu hubiyo caafimaadka xoolaha dhoofaya macjarku xoolaha qabta 3 shaqo waaweyn qaybta marka ugu horeysa xooluhu waxa ka yimaadaan gobolada dalka deetana sidoo xanaanada xoolaha gobolka ayaa soo eega warqadaas uu soo shareeray movement warqadaas soo qaatan leeyahay movement beebar oo soo garan macjarka deetana macjarka warqada keenan deetana xooluhu markii halka qiimadeena albaabka warqadaas laga gudoomaa inspection waxa la yiraahdaa lagu sameeyaa ama leego physical examination xoolaha neefkii waxa la wada celiyaa kii kana macjarku soo galaa deetana dhiig baa laga qaadaa dhiiga marka laga qaado laabka la geeyaa deetana jawaabta laabka markuu soo saaro
ayaa halkan nin u qaabilsan gurudda wixii neef xoolaha xanuunsanaya laga helo dhiigga ayaa halkan lagaga reebaa waxaa lagu dhuftaa wadamada qaar baa vaccine baa lagu dhuftaa deetana air tag baa lagu dhuftaa saasay xoolo ku dhoofaan dhammaan shuruudaha wadamadaana xooluhu ugu qabtaan waanu fuliyaa waxaanu caafimaadiya xoolaha xumaac qaabilsan caafimaadinta xoolaha iyo biyaha cawskana waxaa bixiya ninka xoolaha leh waxaana baadhitaanka halkan lagu mariyo xoolaha loo gudbiyaa qaybta shaybaadhka halkaas oo ay ku maraan maraaxil kala duwan marka dhakhaatiirta halkan aan ku joogno waxa weeyaan dhakhaatiir tababaran oo khibrad badan u leh baadhista maxay ahayd xoolaha dhoofka muddo badan kusoo shaqaynaysay qaybteeda markaa bruseelaha ee Soomaalida dhakhaatiirta Soomaalida gacanta ku haysa ay baadhaa shaqooyinka markaan qabanayno waxaan u qabanaa xoolaha sad soo aragteen baa xariyaha markay joogaan lambar baa lagu soo qoraa marka lambarkaas dhiig isagoo ku qoran baa halkan la keenaa dhiigga dibad halkan marka la keeno oo shay baadhnaa oo waxaan ka baadhnaa xanuunka bruseelaha nagu adeegsanayna Rosberg test baa la yiraahdo antigen dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee halkan ku sugani waxay awood u leeyihiin inay maalintii ka shaqeeyaan ku dhowaad 20 kun oo neef kuwaasoo la hubinayo badqabka caafimaadkooda kii aan diino ama aan ku aragno calaamadaha aan waafaqsanayn dhoofka xoolaha waanu calaamadinaa calaamadaha aan waafaqsanayn dhoofka xooluhu macnaha waxa weeyaan waxa ka reeban dhoofka neefka xanuunsanaya neefka nabarrada leh neefka weynaaday ama dadiisu aan cad lahayn neefka dhaawacma waxaasoo dhan baanu ka reebnaa kadibna waxay u gudbaan laboratoryga qaybta kalluumaysiga waxa dayactir lagu sameeyay doomaha waxaana la maalgeliyay kalluumaysatada dayactir loo sameeyay doomaha iyo muxuu ahaa foodayaasha meesha yaalay oo loo sameeyay dayactir hay'adu muxuu ahaa tababaro lagu qabtay oo ku saabsan muxuu ahaa dhalinyarta ay maalgelin loo sameeyo ha noqoto xagga maalgelin ama ha noqoto xagga qalabkaba oo muxuu ahaa laga caawiyay oo si fiican loo garab istaagay oo shaqo abuur looga sameeyay sida wada arkaysaan waxaan nimanka saaranay waxa weeyaan laashkii wasaaradda marka laashka fara badan oo kale wasaaraddu leedahayna way joogaan way soo tusdoonaa insha Allah si wanaagsan ayaa loo kalluumaystaa badeena dadku waxaad moodaa in aad iyo aad imanka u soo baranayaan kalluumaysiga marka markasta uu yimaado imanka waxaad arkaysaa in loo dhoofinayo oo la geynayo magaalooyinkan waaweyn Hargeysa iyo Burco iyo ilaa Boorame marka markasta uu yimaado kalluunka marka waa la dhamaynayaa waxaad moodaa in dadkeenu aad iyo aad u soo barteen kalluumaysigii sanadkan waxa loo qabtay gobolka Saaxil waxa laga furay 2 xafiis oo xanaanada xoolaha oo mid labaad laga furay degmada Sheekh iyo mid go'da weyn laga furay oo sanadkan laga furay oo lagu daaweynayo xoolaha oo wasaaraddu ay leedahay oo laga furay waxaanu shaqeynay oo wasaarad ahaan caawinay oo cabashooyin ka yimaadeen deegaanada degmada Sheekh waxaanu saarnay 4 team 2 jeer oo mid 10 cishaa mar 6 cishaa iyo mar 15 cishaa intaa waxaa naga caawinaysay wasaaraddeeda oo waxaan ku daweynay ku dhawaad xoolo gaaraya ilaa 3 kun xagga calafka xoolaha waxa la sameeyay xarumo oo la dhisay xarumo calafka xoolaha ah oo laga dhisay gobolka Awdal gobolka Sanaag iyo gobolka Sool gobolka Awdal waxa ka hirgalay mashruuca Siira waxaana u hirgalay 25 dhismayaal hangarra isugu jira oo hangarradii calafka ah oo loo qaybiyay 80 mishiin oo ah mishiinada calafka lagu jaro kuwa lagu yaryareeyo kuwa lagu diyaariyo qaab loogu dhigo xooluhu loogu kaydiyo ay cuni karaan oo mishiinadaasoo 80 mishiin oo noocyada processka qaata calafka loo sameeyo dhan ka qayb qaata ayay gacanta loo geliyay dadka
deegaanka oo lagu tababaray waxaana ka faa'iidaystay 1,000 qoys oo reer awdal ah ayaa ka faa'iidaystay mashruucii la midka ahaa FNS Ribro la odhan jiray oo asagana ka hirgalay gobolka Sanaag iyo Sool waxaa loo dhisay dhismayaal gaadhaya 17 hangar iyo isugu jira qaybihii calafka oo lagu kaydin lahaa waxaana loo qaybiyey 85 mashiin oo sidii kuwa hore dhan isugu jira mashiinadii looga baahnaa calafka inay jiraan inay processkooda dhameeyaan inay baagareeyaan ayaa iyagana la siiyey halkaana waxaa ka faa'iidaystay Sool iyo Sanaag marka la isku daro oo lagu tababaray 2,040 qoys gobolka Sanaag wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Somaliland iyadoo gudanaysa waajibka shaqo ay u hayso qaranka waxay qayb weyn ka qaadatay hirgelinta dekedda magaalada taariikhiga ee Maydhe waxaana 27kii Diseembar ee sanadkii 2022 uu xadhiga ka jaray wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Somaliland Siciid Sule Maxamed dekedda magaalada Maydhe oo wax weyn ka tari doonta xaaladda dhaqan-dhaqaale ee guud ahaan dalka si gaar ah magaalada Maydhe oo sanadihii u dambeeyay si weyn u dhismaysay kuna socotay horumar xawliya waxqabadkii sanadka 2022 ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga wasaaradda u xil saaran wax soo saarka lafdhabarna u ah dhaqaalaha dalka waxaa sanadkan u hirgalay haddaan ka bilaabo xagga kalluunka mashruucii dekedda kalluumaysiga ee Maydh ee gobolka Sanaag oo xadhiga laga jaray dekeddaas oo imika shaqaynaysa shaqadoodii bilowday waxaa kale oo hirgalay sidii caadada ahayd in la caawiyo ama la tababaro ama qalab waxay u baahan yihiin la siiyo kalluumaysatada degmooyinka iyo tuulooyinka ku teedsan intooda badan xeebta dalka waxaa kaloo hirgalay wixii ay ka dhinaayeen degmooyinka ama goobaha kalluumaysatada ee Zeylac ilaa iyo Lasqoray inta ka sokaysa in ay wixii dayactir ay u baahnaayeen mashiinadooda iyo qalabkooda iyo qalabka ay u baahnaan ee baraf dhaliyaasha iyo qaboojiyaasha ay ka mid ahaayeen in loo dayactiray wixii wax ka dhinaayeenna loo hirgeliyo la siiyey kalluumaysatadu waddanka marka la eego xeebta aanu leenahay dhererkeeda iyo inta kalluumaysatay ku jirta way kala badantay oo kalluumaysatada aad bay u yartay habka ay wax u kalluumaystaanna waa hab aan casri ahayn saa darteed waxay wasaaraddu xil iska saartay in tababar la siiyo kalluumaysatada tababarada casriga ah sida shabaagta noocyada dambe habkii gaargaarka ah ee loo kalluumaysan jiray laga bedelo oo laga dhigo ama la sameeyo iskaashatooyinkaasoo runtii la siiyey tababaro casri ah qalabna loo qaybiyey ay ku kalluumaystaan qalabkaasoo ka duwan qalabkii hore ay ugu kalluumaysan jireen waxaa sanadka 2022 u suurtagalay wasaaradda in xarigga laga jaro ama la dhiso dekedda Maydh oo run ahaantii markii hore loogu talagalay inay noqoto kalluumaysi laakiin ay wasaaraddu ku dadaashay inay intaa kasii ballaarato oo baahiyaha markaa halkaa ka jira si ay u daboosho dekeddaas oo dhererkeedu yahay 165 mitir ballaceeduna yahay 7 mitir run ahaantii waa deked dabooli doonta kalluumaysatada iyo dhammaan muxuu ahaa ganacsiyada yaryar ee ka socda magaalada dekedda ah ee Maydh runtii intaa lagu soo koobi kari maayo waxqabadkii wasaaradda waxaa soo kordhay dekedda Maydh oo ah il dhaqaale oo u soo kordhay gobolkan Sanaag iyo dhammaan
muwaadiniinta jamhuuriyadda somaliland sidoo kale waxaa la sameeyey maxay ahaydey iskaashatooyin kalluunka lagu tababaray oo loo sameeyey guddigoodii oo loo sameeyey maxay ahaydey wax kastoo imkaaniyaad ay u baahnaayeen dekeddaasi waxay muhiimad u leedahay dadka kalluumaysatada ah muhiimad weyn bay u leedahay qofka kalluumaysatada ee doonta uu ku kalluumaysto marka uu keeno kalluunkii dhibaatay ku ahaan jirtay intuu uu dibadda u soo saarayo badda gudaheeda ka soo saarayo hadduu xilliga keeno laashkii ama doontii ee xilliga keeno waxay noqonaysay inuu laakiin imika dekeddii buu ku soo xidhanayaa kalluunkii halkaasuu ka soo saaranaya dabeedna dekeddu soo dhiganaya halkaasuu kala baxaya marka uu tegayo ee uu jilaabanayo ee uu badda gudaheeda gelayana sidoo kale laftigeeda wixii alaab ahaa ee u baahnaa ama raashin ha noqdo ama baraf ha noqdo ama wixii uu sii qaadanayay halkaasuu aayar isagoo dekeddii laashkiisa ugu xidhay ama doontiisa ugu xidhan tahay ayuu saartaa dabeedna saasuu ku gelayaa sidoo kale waxaa soo hadda aanu gacanta ku haynaa oo iyadana dhulkiina aanu haynaa la isu iibiyo dowladda hoose naga taageertay muxuu ahaayey halkii laga dhisi lahaa sariibadda kalluunka taasoo wax badan ka taraysa dhaqaalaha iyo wax soo saarka kheyraadka badda sidoo kale waxaa jira kalluumaysatadii oo laga taageerayo qalabadii oo ay ka mid yihiin meesha la yidhahdo xarshaw iyo shalcab oo kale dekedda dadka reer Maydh aad iyo aad bay uga faa'iidaysan doonaan waana horumar loo baahnaa oo soo kordhay dad kastoo gacan ka geysatana waanu ku ammaanaynaa hadday tahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland iyo hadday tahay wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarka kalluumaysiga hadday tahay maayarka degmada Maydh oo saddexduba mid walibana uu lahaa ugu horeyn madaxweyne ugu horeeyo uu ku xigo wasiirku uu ku xigo maayarku ay ku mahadsan yihiin mid waliba hawlgalkeeda iyo ka hirgelinteeda dekedda degmada Maydh wax badan baa isbedeli doona u dhaxaya hadday noqoto wax soo saarkii kalluunka badda lagala soo baxayay kasoo baxayay kalluunku kasoo saaray muwaadiniintu badda kasoo saaranayeen iminka markii hore iminka meel ay ku soo dejiyaan oo doontii markay ka soo qaado kalluunkii badda halkay ku soo xidhanaysay waxa loo sameeyay positionkii waa seaboardkii bay heleen jetty fishingkii weeye dhismayaashii hoolalkii lisoo qabo barasashadii kawaankii kalluunka oo la dhagax dhigay oo dhismayaashoodii bilaabmayaan ayaa iyana ku soo jira degmada Ceer Gaabo iyo guud ahaan gobolka Sanaag waxa laga hirgeliyay mashaariic horumarineed waxaana lagu guuleystay goobaha wax soo saarka xarumaha calafka xoolaha dhismayaal cusub iyo mashaariic kale gobolka Sanaag haddaan idinka warbixiyo gobolka Sanaag waxa weeye gobolka ugu ballaaran gobollada Somaliland sidoo kale waa gobolka ugu xoolaha badan sidoo kalena waa gobolka ugu badda dheer heeb ahaan marka la eego gobollada ugu badda dheer buu ku jiraa waaxda productionka waxa uu qabsoomay 10 dhisme oo laga calafka xoolaha ah oo degmada Ceer Gaabo ah 10kaas oo ah kala ah dagaar laanqiciye waaxda caafimaadinta xoolaha waaxdaasi waxay ka shaqeysaa nafaqeynta iyo daaweynta xoolaha iyadu mar walba shaqadeedu waa mid joogto ah har iyo habeen aanu hayno waxaa jira 10 meelood oo laga dhisay calafkii xoolaha iyo 4 seere 10ka meelood waxay sameynayaan mashiinadii baa la keenay mashiinadaas waa 7 nooc oo mashiinadii ah 7 nooc waliba qayb si gaar ah ayuu process gareynayaa muxuu ahaayay calafkii taasoo marka hore waxaanay xooluhu cuniba kareen oo aanay awood u helin inay cunaan ay ka dhigayaan waxay cuni karaan oo u fudud degmooyinka Ceelaf Weyn iyo Garaadog oo ka tirsan gobolka Sanaag ayaa laga hirgeliyay dhismayaal adeegyada caafimaadinta xoolaha iyo goobaha calafka xoolaha waxaana dadka deegaanku ay ka mahadnaqeen waxqabadkan ballaaran ee ay u sameysay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland walaal anagu waxaan ahay deegaanka degmada Ceelaf Weyn ee xoolo dhaqatada ah khaasatan inta magaalada ku dhow marka wasaaraduna xoolaha way daweysay mar hore iyo mar dambe way noo daweysay meel kasta xooluhu ku xanuunsanayaan geed iyo ari way tagtaa wayna ka hawlgashaa si fiican oo wanaagsan oo hufan
noogu shaqaysaayo firfircoon waan ku hambalyeynaa saa noogu shaqayso waana ku mahadsan waxaa noo suurtagalay sanadkaa in la ballaadhiyo xafiisyada wasaaradda ee ku yaalla Oodweyne, Balgubadle iyo Laascaano. waxaa kaloo la dhisay xarunta caafimaadka xoolaha ee Dila si loo horumariyo xoolaha. wasaaraddu waxa ay waajibaadkeeda ka mid ah min xoolaha xeradu ku jiro ilaa sayladda ilaa la gowraco ama la dhoofiyo inay ku daba jirto oo ay eegto. taa markaa waxa ay keentay in la horumariyo sayladaha Burco oo dib u ballaarin lagu sameeyo, dib u habeyn lagu sameeyo Burco iyo Hargeysa iyadoo lagu kordhiyay dararkii xoolaha, hararkii ay agsanayeen, taangiyadii biyaha, waxa la oran jiray raamamkii lagu reeriyay xoolaha iyo xafiisyadii ay galayeen dhaqaatiirtii joogtada ahayd ee sayladaha ka howlgelayay. dadkeenu maaha xoolo dhaqato ee waa xoolo raacato. marka wasaaraddu waxay ku dadaashay in la bedelo nidaamkii xoolo raacista laguna tababaro dadka habka casriga ah ee loo beero calafka la iskuna daro loogana faa'iideysto. runtii taasi waxaa suurto galay markaa in 42 tuulo oo ku kala yaala gobollada Awdal, Sanaag iyo Sool lagu tababaro dad gaaraya ilaa 4,000 oo qof habka casriga ah ee calafka loo sameeyo ama la isugu daro ama loo ridqo si loo helo in ku filan oo uu neefku qaadi karayo si nafaqadii sare loogu qaado. taasi markaa waxay keenaysaa in xagga caanaha iyo cadkaba uu sare u kaco ama uu noqdo mid tayo leh. halkani waa gobolka Awdal. maamul daadejinta ayaa noqotay furaha waxqabadka si adeega caafimaadka xooluhu u gaadho guud ahaan gobolkan, maadaama dadku xoolo dhaqato u badan yihiin una baahan yihiin adeeg hufan oo ugu yimaada halkooda. waxyaabihii noo qabsoomay waxaa ka mid ah inaanu samaynay maamul daadejin si adeega caafimaadka xoolaha uu gaadho gobolka guud ahaanba oon adeegii fidino, maadaama dadku xoolo dhaqato yihiin way u baahan yihiin in adeegooga meeshay joogaan loogu geeyo. oo waxa maanta shaqaynaya maamulayaasha degmooyinka sida degmada Boorame, degmada Baki iyo degmada Lughaya oo guud ahaanba maxaa raday waajibaadkii shaqada loo igmaday in xarumahooda ka howlgala kuna shaqeeya. geesta kale wasiirka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Somaliland oo weheliyo agaasimaha guud ee wasaaraddu ayaa 12 bishii tobnaad ee sanadkii 2022 waxay xadhiga ka jareen dhismayaal muhiim ah oo ay wasaaraddu leedahay kuwaasoo ku yaala gobolka Awdal gaar ahaan magaalada Boorama. hirgelinta shaybaadhka weyn ee magaalada Boorama ayaa ka mid ah waxqabadka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland oo si casri ah loo qalabeeyay kaasoo dabooli doona baahida dhinaca caafimaadka ee xoolaha. waxa kaloo noo hirgelay shaybaadhka weyn ee magaalada Boorama kaasoo dhammaanba ka fargarayn doona gobolka oo dhan xanuunada wixii gobolka degal fadhi ahaada ama xuduudaha inooga soo gudba. marka xanuunna aan kolka hore deegaanka lagu aqoon ayaa suuragal inay soo galaan. marka meeshii lagu baari lahaa shaybaadhka lagu baari lahaa maanta diyaar shaqaynayana ayaa sanadkan u hirgelay 2022 oo ah shaybaadh weyn oo casri ah qalabaysanna. waxa iyadana laga shaqeeyay sayladda weyn ee xoolaha iyo kawaanka xoolaha waxaana ku diyaara dhaqaatiir xirfadoodu sareyso oo ka tirsan wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland. waxaa noo hirgelay inaanu ku shaqaysiino sayladda xoolaha ee Boorama iyo kawaanka
oonu ka howlgelinay dhakhaatiirta wasaaradda xanaanada xoolaha iyagoo guto waajibaadka loogu talagalay waxyaabaha ay qabtaan ama waajibaadka ay qabtaanna haddii aan soo koobno waxaa ka mid ah inaanu mamnuucnay guud ahaanba xoolaha riman in la qalo oonu ka joojinay markaa guud ahaanba si aan u sugno caafimaadka xoolaha maadaama yihiin xooluhu wixii aynu quudanaynay ayna jiraan xanuuno dadka xoolaha iyo dadkaba iskaga gudba oo la yidhaahdo zoonotic diseases mashruuca calafka xoolaha oo ka shaqeeya labada gobol ee awdal iyo baki ayaa iyadana lagu guulaystay sanadkii tegey ee 2022 waxaana isku goyntoodu ay dhan tahay 25 goobood oo ay ku diyaarsan yihiin qalab casri ah oo farsameynaya caleenta ay xooluhu cunayaan kale haddii aan ku sii soo iyadna waxaan u hirgelay sanadka 2022 mashruuca calafka xoolaha oo guud ahaanba ka shaqeeya laba degmo sida degmada Boorame iyo degmada Baki guud ahaanna waxay isugu jiraan ama 25 sayid ama 25 goobood ayaanu dhisnay oo hangareeyaalaan 10 ka mid ah waxa yaala mushan jiiba yaala 15 ka midna waxa yaala laba jiiba yaala injiinada oo loogu talagalay in lagu farsameeyo calafka oo haddii tusaalahaan haddii aan sharaxaad guud ka bixiyo caleenta oo kale mashiinadan waxay sameynayaan oo way farsameynayaan way radqayaan oo waxa la yiraahdo dalab waxa kulli qaranaya dadka xoolo dhaqato beeraleyda ama wastage-ka xoolaha marka caleenta loo dhigo waxa laga yaabaa inay dhagaha u ka cunaan wax kale u hari jiray marka taasi aan uga fogoona ama khasaaraha badan ee baxaya loo yareeyo mashiinadani waxay sahlayaan in marka la radqo haba yaraatay neefku wuxuu ka tagay inay jirin iyadoo waliba loogu darayo sida hadhuurka oo kale digirta si uu nafaqo badan u yeesho marka injiinadaas dhowr nooc bay isugu jiraan mid waa jajaba uu jeexjeexaya mid uu radqaya mid bulkeed buu ka dhigaya sidoo kalena nolosha bulshada wax weyn ayay ka tartay oo inta badan waxa jiraysay sida dadka looleeydo oo kale inay buushi wajaale ka soo iibsadaan marka tii maanta way kaga maarsameen oo mashruucan ayaa wax badan ka taray iyagaana samaysta neefkiina wuxuu noqonayaa neef cadi iyo caanaba leh oo looga faa'iideysto degmooyinka Saylac Lugahaya iyo Gargaara ayaa wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysigu iyadoo ka duuleysa fulinta waajibaadka shaqo ay qaranka u hayso waxay ka hirgelisay sanadkii tegey ee 2022 mashaariic horumarineed sidoo kale waxyaabihii noo qabsoomay sanadka 2022 waxa ka mid ah inaanu fulinay xarumaha caafimaadka ee sida degmada Dila oo xarun ku dhisnay sidoo kale degmada Gargaara magaalada Gargaara oo hoos tagta degmada Lughaya oo iyadna aan ka hirgelin xarun caafimaad gacantana imkaan ka qaadnay sidoo kale degmada Lughaya marka la joogo waa degmo xoolo dhaqato ah xagga kalena kalluunka iyo badii ku laalaysa marka runtii waxaan iyadna ka sameynay laba xafiis mid waa Lughaya fadhigiisu oo wuxuu qaabilsan yahay xagga kalluunka oo waxaan ku leenahay xarun dhawaan hirgelino aan dhisnay isla sidaas oo kale waxaan geynay baraf dhaliye sida duunyaha ama kuwa localka aadan ama kuwa kale meelaha kale ka imanayba aadane inay ka helaan barafkii dadka kalluumaysatadu kaana sanadka 2022 geynay marka xaruntaas way shaqeysaa oo wax soo kordhin xarada degmada sidoo kale waxa iyadna aan saldhig uga dhignay Gargaara bari xaqii xoolo dhaqatada oo xooliinta badan xeebta kuma teedsanad buuraleyda iyo xeebta u dhaxeeyaan halkaan xarun caafimaad oo ayaan ku hirgelinay wax soo saarka dhanka kalluunka ay magaalada Saylac ka faa'iideysatay waxaana dekedda magaalada Saylac ku diyaarsan shaqaale iyo maamul heegan ugu jira waajibaadka shaqo ee ka saaran wax soo saarka dhanka kalluunka iyo xoolaha marka wax qabad markaan kaga soo bilaabo qalabkan aan idin tusay hadda qayb ka mid ah 22 bay ahayd sanadka 2020 hal mashiin oo weyn oo 6 baastoona hal baraf dhaliye halka markaa ku soo gabeeyay dhismayaal baa jira wasaaraddu leedahay wasaaraddu sidaan idin sheegay xoolo iyo kalluun isku jirta waa wada degannahay xaggaana waanu wada degannahay marka halkan waa saydkii kalluumaysiga xaggaasuna waa guryihii xafiiska xanaanada xooluhuna waa ku yaala sanadkan aanu wajahaynay waxaanu ilaahay ka rajaynaynaa inuu mid khayr qaban noqdo oo hawl dhisaan inooga socdaan geesta kale agaasimaha waaxda caafimaadka ee wasaaradda xanaanada xoolaha jamhuuriyadda Somaliland ayaa faahfaahinaya qorshaha u dejisan wasaaradda ee dhanka caafimaadka
waxaanu sidoo kale uu fariin u diray dhammaan xoololeyda Somaliland. qorshaha wanaagsan markaa doonaya halkeedu kula wadaago sanadka 2022 noo qorshaysna qorshaha waxaan ka sameynaa markaa muxuu hayday qorshe yaroo faahfaahsan oo aan isku khaldamayno bil iyo 2 iyo week iyo size daba yaala qorshahaas intaan fulinin aan kalarka meel ka dhignay waxaan sameynaa markaa muxuu hayday baahiyaha loo baahan yahay inaan wax ka qabano oo aan u bedelo wax qabad baahidii marka la keeno waa 10 qodob ayaan doonaynaa sanadkan in baahiyaha iyaga ku fadhiisnay ka koowaad wuxuu noqonayaa in kor loo qaado in laga hortago xanuunada nagaga imanaya wadamada jaarka oo ay ogaano dhibka keenayaan iyo noocyadooda markaa ka hortag inaynu sameyno oo xoolihii la tallaalo sidoo kalena xogtoodii lasoo helo oo laga hortago ka labaad waxa weeyaan in xoolaheenii gudaha ku jiray waddanka ama joogay waddankeena in caafimaadkoodii lasii kobciyo inaanu la dagaalanno durinkan xanuunka faafiya oo aanu buufino sida muxuu hayday meelaha xooluhu isugu yimaadaan dararka oo kale kawaanadoo kale muxuu hayday xarumaha siiladahoo kale inaanu tayeyno aqoonta dhakhaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaadka xoolaha jooga xarumaha caafimaadka aanu dhisnay iyo kuwa gobollada waaweynka iyo degmooyinkana inaanu had iyo jeer dalbanno oo waddanka u ogolaano oo keliya inay soo degto ama la isticmaalo kaliya dawooyinka tayada leh iyo talaalka loo baahan yahay markaas la doonayo xoolaheena dhoofaya in muxuu hayday lagu sii tallaalo waxyaalaha kale waaxda u qorshaysan waxaa ka mid ahaa in tababaro isdaba socda la siiyo kalkaaliyaasha iyo kaaliyaasha caafimaadka xoolaha iyo maamulayaasha iyo isduuliyaasha laftirkooda intaa waxaa dheer inaanu sameynay mobile muxuu hayday tiim ama tiimo wareega oo caafimaadka xoolaha ka shaqeeya oo qurux badan oo gawaadhidoodii oo dhammaystiran leh kuwaasoo hoos tegaya waaxda caafimaadka markii waaxda caafimaadka laga tagana gobolladii degmooyinkii iyo gobolladii dalka aan u kala dirayno isduwayaashu gacmaha ku hayaan kolba muxuu hayday meelashii looga baahan yahay ay dirayaan qorshaha guud waxaan u diray isduwayaashan dhammaan u diray warqadda si ay u fuliyaan kaasay markaa fuli doonaan sanadka markay fuliyaan deedna waxaan heli doonaa jawaabta maxaa laga soo noqoto sanadka 2022 marka muxuu hayday qorshaha waaxda caafimaadku sanadka u dhigtay kaasoo ahaa aan doonaya inaan kula wadaago qorshaha guud ee waaxda caafimaadka u yaalla waaxda caafimaadku waa lafdhabarta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga waxay isku xidhaysaa ay bridge u tahay muxuu hayday wasaaraddii iyo guud ahaan bulshada xoolo dhaqatada ayay isku xidhaysaa waxaana ka shaqeeya dhakhaatiir aad u badan oo ilaa gaarhaya 500-600 gaarhaya waxaa kaloo sanadkan muxuu hayday noo qorshaysan in tababaro wanaagsan la siiyo maamulayaasha iyo dhakhaatiirta ka shaqeeya macjarradu gaar ahaan kuwa ku yaalla berbera ee saddexdaayo waxay lafdhabar u yihiin dhoofka xoolaha nool ee dibadda geyno kuwaasoo muxuu hayday ay ku qorayeen dhakhaatiir fara badan iyo maamulayaal kana shaqeeya caafimaadka xoolaha iyo sidii loo daryeeli lahaa xoolahaas intaanay naga dhoofin ilaa marka lagu soo xareeyo ilaa marka laga saaro marka qorshaha koowaad ee aan sanadkan lahayn ka leenahay xarumaha quarantineska loo yaqaano maxaa leeyahay howlgallada quarantineska isugu jiray berbera ku yaalla waxa weeye in neefkii soo galay si wanaagsan loo caafimaadiyo la jeegareeyo kii caafimaadka qabana gudaha la geliyo kii aan caafimaad qabina dib loo celiyo lagu celiyo daaqii xoolaha lagu celiyo dawada la siiyo caafimaadkiisa la soo hubiyo kan kalena caafimaad systemka caafimaadka saxda la mariyo ilaa intuu dhoofiyo oo loo jiray warqadda muxuu hayday caafimaad qabka iyo inuu waddanka ka bixi karo neefkaasi oo uu dhoofi karo wax soo saarkii calafka gobolka togdheer mashruuca aroori oo hore u jiray waxaa lagu sameeyey ama lagu kordhiyey extension ah dhismayaal 25 ah oo isugu jiray qaar hore dayacnaa oo la dayactiray iyo qaar cusub oo la sameeyey waxaa loo sameeyey biyogelin
waxa aanu ku biirinoo kale oo aanu ku kordhinay shaqaalihii ay u baahnayd xaruntaasu oo dhammaystiran hawshoodiina bilaabay. togdheer wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga Somaliland iyadoo gudanaysa siyaasadda uu dejiyay wasiirka wasaaraddaasi Siciid Sulum Maxamed waxay waxqabad la taaban karo ka geysatay gobolka Togdheer oo laga hirgeliyay dhismayaal cusub iyo adeegyada caafimaadinta xoolaha. waxaha kala duwan ay ka kooban tahay wasaaraddu ayaa dib u habeyn lagu sameeyay. waxa iyaduna horumar ballaaran laga sameeyay goobaha calafka xoolaha iyo seeraha magaalada Burco oo sanadkii 2022 ay ku baxsadeen xoolo dhan 1 milyan oo ari ah iyo 21,000 oo geela. waxaana hadda ka socda mashaariic waaweyn oo ay hirgelinayso wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Somaliland. sanadkan waxa la sameeyay dayactir lagu sameeyay xafiiska gobolka Togdheer bilicdiisii marka waxaan ka bilaabnay horta bilicda in la hagaajiyo sanadkii inta dhamaaday. markii labaad waxaan ka bilaabnay qaybtii shaqaalaha waxaan sameynay daadijin maamul daadijin annagoo eegayna waaxii wasaaraddu ka koobneed ayaan shaqaale u qaybinay. waaxdii clinic-iska amba xoolaha xanuunsan lagu daweynay, waaxdii farmasiga, waaxdii xanuunada dabagalka xanuunada, qaybtii seylada livestock marketka, qaybtii baadhisay hilibka xoolaha dhakhaatiir ku qornay. marka dhakhaatiirtii saasan u dejin maamul dejin ugu sameynay qof kastana bartiisa ka hawl galaa. waxa kale oo aan sameynay sanadkan aan soo kordhinay in xoolihii qalliinka lagu sameeyay ee ummadda loo qaliyay ee dadka loo qaliyay maadaama dadku inay yihiin xoolo ku nool oo maalin kasta hilib la cunayo in xoolihii caafimaadkooda la baaro. xoolihii dadka loo qaliyay markay seelada joogaan baa aan ka bilownay ilaa inta kawaanka seeyadan dhakhaatiir baa ku baadha kawaanka marka la geeyo dhakhaatiir baa baadha. waxa kale oo wacyigelin ku sameynay sanadkan dadkeenu dawada xoolaha way iska iibsadaan inta iibsan bi xoolaha iska daweeyaan ma sameeyaan taxadarkii lagu talagalay. marka waxaan u sheegnay wacyigelin badan sameynay TV-da iyo baraha bulshada ka sii deynay in neefka la daweeyay aan hilibkiisii caanayso la isticmaalin inta ay dawadu ka baxayso. ummadana aan loo soo iibgeyn neefka la daweeyay lama ogola in loo soo iibgeeyo waayo dawadaasu qofka bini aadamka ay waxyeelaysaa. waxaan kaloo aan sameynay cold chain-kii xafiiska gobolka cold chain-kii talaagadihii iyo wixii xumaaday dayactir baan ku sameynay. talaagada cusub waanu keennay marka cold chain-ku waa diyaar haddii talaal noqoto iyo wixii kaleba waa ready. waxaa kaloo jira iyaguna seerihii waa soo marteen oo seerihii sanadkan imka dhamaaday wax ku baxsaday 1 milyan ku dhow oo ariya iyo 22,000 oo geela ayaa ku baxsaday seeraha. waxa ka socda imka mashruuc weyn oo xarumo lagu dhisay tababar lagu sameynayo hooyigay dadka la tababarayay xarun meelo lagu soo calafkii xoolaha lagu beerayo caafimaadka xoolaha. marka mashruucaas wuxuu ku socdaa seeraha. waxyaabaha ugu weyn ee sanadkan aqoonay kuwaas ka mid ah waxa kale oo dhinaca socota in tiimamkii la diro 3 bilood kasta tiimba gobol kasta laga diraa. markaas 3 bilood kasta tiimba la dirnaa kuwaasoo ka soo shaqeynaya caafimaadka xoolaha, nafaqeynta xoolaha, warbixinihiina ka keenaya. seylada magaalada Burco oo ah seylada ugu weyn geeska Afrika ayaa wasaaraddu waxay ku guuleysatay in laga hirgeliyo xarun weyn oo si casri ah loo dhisay taasoo laga maamuli doono shaqada baaxadda leh ee ka socota seylada magaalada Burco. xafiiskayga seyladu wuxuu ka kooban yahay 2 department oo waaweyn. department ah clinic-gii iyo farmasigii iyo meeshii lagu daaweynayay xoolaha wixii buka ama xanuunsanaya iyo department-kii kale oo ah qaybta certification-ka oo ah qaybtii laga jarayay shahaadada caafimaadka xoolaha wixii dhoofaya ama dibadda aadaya. qaybta clinic-ga waxaan ugu diyaarkaa dhakhaatiirta xanaanada xoolaha dhakhaatiirtaasoo subaxii dhexmara xoolaha wixii dhoofaya iyagoo inspektareeya oo eegaya wixii aan u qalmin markaas in la raro ama xanuunsanaya ama xanuun dushooda ka muuqdana reeba. sanadkii dhamaaday wasiirka wasaaradda
Siciid Sule Maxamed waxa uu suurto gashay inuu sameeyo xaruntan ballaaran ee ku taala Siirada Burco marka laga yimaado xarunta Isduwaha xaruntaas oo ka kooban 3 qol oo waaweyn iyo wax loo yaqaanay sidoo kale xaruntu waxay ka kooban tahay taangiga weyn ee inta badan 100 foosto qaada iyo wax loo yaqaanay meelaha xeelooyinka ay ka cabiyeen xooluhu xarumaha degmooyinka Qoyta Duruqsi Qoryaale iyo Waraabeeye oo sanadihii hore aan shaqayn jirin ayaa laga hirgeliyay dhismayaal cusub waxaana ku diyaaray dhakhaatiir u tababaran shaqada caafimaadinta xoolaha degmooyinkii waxaan ka furnay 4 xarumood ayaa imka shaqaynaya oo sanadkan imka dhamaaday la furay dhakhaatiirtu way joogaan ummaddiina way adeegayaan 4 xarumood aan furnay kow ka ah Qoyta 2 waa Waraabeeye Duruqsi iyo Qoryaale sanadii hore waxay naajin laakiin sanadkan baa la furay waana shaqaynayaan dhakhaatiirtii iyo dadkina way joogaan bulshaduna way adeegayaan magaalada Oodweyne iyo degmooyinka hoostaga ee kala ah Khaatumo Harasheekh Xaaji Saalax iyo Xaaxi ayaa wasaaraddu ay ku soo kordhisay dhismayaal cusub halka dayactirna lagu sameeyay kuwa hore u jiray goobo loogu talagalay in lagu kaydiyo calafka xoolaha ayaa sidoo kale wasaaraddu ka hirgelisay gobolka Togdheer xarunta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee magaalada Oodweyne ayaa laga hirgeliyay dhismo casri ah kaas oo xadhiga ka jaray sanadkii 2022 madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi gobolka Oodweyne waxa ka hirgalay magaalo beereedka Xaaxil la yiraahdo biyo xidheen 200 mitir ah oo leh kanaal 1000 mitir ah ama 1 kiiloomitir ah waxaana la sameeyay sanadka oo mashruucaas hirgeliyay 400 oo hektar oo lagu beeri doono calafka xoolaha waxaanu geynay 4 cagaf oo diyaarin doona dhulka 400 hektar ah oo shaqayn doon 4 cagaf oo shaqayn doona 1 saacadood ayaa ayadana hawsheedii imika socotaa waxa kale oo iyagana u diyaarinay seedskii waxa kale oo lagu tababaray dadka deegaanka ee ka faa'iideysan doona mashruuca sida wax loo beeranayo iyo sida wax loo kaydsanayo iyo sida midhaha dhirta nooc waliba sida yihiin loo hirgelinayo hadii alla yiraah xagga dhismayaasha ama hantida maguurtada marka ku horeeyo waxa dayactir iyo dhismayaal cusub oo lagu sameeyay xarumo ku kala yaala 4 degmo gobolka ka kooban yahay degmada Khaatumo waxa lagu sameeyay dayactir iyo ballaarin sidoo kale degmada Harasheekh iyadana waxa lagu sameeyay dayactir iyo ballaarin degmada Xaaji Saalax iyadana sidoo kale dayactir baa lagu sameeyay dhismayaasha cusub ee noo soo biiray sanadkan waxa kamid ah dhismahan aynu hadda joogno xaruntii gobolka oo iyadana lagu sameeyay gebi ahaan bayada cusub gebi ahaanteeda cusub sidoo kale waxa sanadkan inoo hirgalay 2 cold chain wax la yiraahdo oo lagu kaydiyo talaalka oo labada degmo ku kala yaala degmada Oodweyne iyo degmada Reedo Khaatumo oo ugu tala galnay insha Allah inay labada degmo iyadana xuduudka xiga ay waraabiso halka degmada tan halkan ku taalaana ay inta kale labada degmo iyaguna xagga waqooyiga xiga ay insha Allah adeeg siin doonto sidoo kale waxa sanadkan dhismayaasha inoo hirgalay xagga horumarinta dhisme ama hangar weyn oo sii mar doonto Xaaxi ku yaala oo ay ugu tala galnay in lagu kaydiyo calafka xoolaha dhismahaasina gebi ahaan buu dhameystiran yahay sidoo kale waxa socda biyo xidheen weyn oo dooxii baahsanaan jiray oo dhuubtay loogu tala galay in dib sidiisu ugu noqdo si ay dadku uga faa'iideystaan calafka iyo waxyaabaha kale uga faa'iideysan jireen kaasna gacanta lagu hayaa shaqadiisu way socotaa caafimaadka xoolaha
waxaanu dirnay sanadkiina naga tegey 15 team oo ka shaqeynayay daaweynta ama caafimaadinta xoolaha oo campaign qaaday xarumaha way joogaan dhakhaatiirtu afarta degmo si maalinlaha way uga howlgalaan laakiin waxaa jira marmar campaign la qaado ama mar cid inaga taageerta aynu helno ama wasaarad ahaanba hamaal geliso marka 15 team baa baxay waxay daweeyeen 220 kun oo neef waxa ari ahaa 164 kun 910 ari bay ahaayeen 180 lo bay ahaayeen geeluna waxa 550 kun sagaal ka midina waxay ahaayeen gamaan boodada marka la isku daro mashruucan Hargeysa ee kawaanka weyn ee xoolaha qadistooda sanadkan waxaan u dhameystiray wax la yaalo wixii ay uga baahnaan caafimaadka xoolaha marka hore intaan la qalin iyo marka la qalaba wixii caafimaad iyo dhakhaatiir looga baahnaa ayaanu ayadana noogu suurto gashay inay noo dhamaato waxa sidoo kale noo hirgalay dardargelinta shaqaalaha wasaaradda oo dhan gobolada oo dhan waxa noo hirgalay iyadoo ay noo furaayeen gobolada iyo degmooyinka iyo tuulaan nooga furaayeen awal 34 xarumood inaanu sanadkan xarumo xidhnaana furno qaar cusubna ku kordhino ilaa 30 xarumood oo kale oo taa ay tahay maanta dalka ay nooga furan yihiin degmooyinkiisa iyo tuulooyinkiisa 64 xarumood oo xoolaha lagu xanaaneeyo ama xafiisyo furan oo gurmadka degdega ah waxa noo hirgalay sanadka inay nagu guuleeyay inaanu helo 6 gaari oo 3 ka mid yihiin ay qalabaysan yihiin oo qalabkii laboratoryga iyo caafimaadka iyo talaajadii saaran yihiin oo aanu ka hirgelinay dalka 3 gobolna annako aanu 3 gobolna aanu galay اللهم صل على سيدنا محمد aanu geynay gaadiidka inta kalena ay geeyeen noo keeneen nalagu caawiyey gobolka sool halkani waa gobolka sool wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysigu iyadoo fulinaysa siyaasadda uu u dejiyey wasiir siciid sulum maxamed waxay ku guulaysatay sanadkii tegey ee 2022 inay gobolkaasina ka hirgeliso mashaariic wax ku ool ah oo dadka deegaankaasi ay mahadiyeen degmooyinka Caynabo Oog Waridaad Wadaamago iyo Laascaanood ayaa laga dhisay xarumo cusub halka kuwa hore u jirayna dib u habeyn lagu sameeyey xarumahaasi oo lagu caafimaadinayo xoolaha badqabkoodana lagula soconayo maadaama xooluhu ay yihiin lafdhabarta dhaqaale ee dalka xarumaha calafka xoolaha ayaa sidoo kale laga hirgeliyey degmooyinka Wadaamago Jaleelo Farama iyo Habarheshay kuwaasi oo ay sidoo kalena ay diyaar ku yihiin qalab casri ah oo farsameynaya caleenta xooluhu ay cunayaan haddii aan warbixinada ka siiyo waxyaabihii noo qabsamay sanadkii ina dhaafay 2020 waxaa ka mid ahaa inaan furnay xarunta kliniga ah ee Caynaba oo iminka shaqeynaysa xoolahana si wacan ugu adeegaysa sidoo kale xarunta Oog iyadana lafteeda iminka ay shaqeynayso aynu sii mari doono oo runtii iyada baahi weyn runtii aad loogu qabay oo halkan intaan tiimka ka qaado aanu geyn jirnay maxaan dhahay Oog geyno kadibna halka haddana ay ka sii baxayeen oo ay dadka uga soo shaqeynayeen oo aan lahayn meel aan dawada dhigano markaan u shaqeyno deegaanka oo aan lahayn runtii meel aan dawada dhigano laakiin iminka ilaahay mahadi weeyaan oo way noo shaqeynaysaa waana si mari doonaa haddii ilaahay ka dhigo waxaan noo furantay sanadkii 2022 xarunta Waridaad lafteeda oo aan ku sameynay wax laga yaqaan rehabilitation oo adigu xoogay intay adigu xoogay yara damage yara gaadheen iyaduna falilah alxamdu iyaduna waa meelaha iminka iyaduna aadka inoogu shaqeynaysa saraaro dhan iyaduna meelaha aadka u waraabiya oo waliba baahiyaadka ugu waaweyn gobolka meelaha daboolay ay ka mid tahay runtii sidoo kale waxyaabaha inoo qabsamay xarunta Cayno lafteeda waxa jira ma lahayn muunad ama meel lagu soo hirto oo wasaaradda oo muuqanaysa
may lahayn iyada lafteeda waxay ka mid tahay waxyaabaha iminka aan iyada lafteeda aan sameynay sanadkii 22 markaan dhaafay iyada lafteeda waxyaabaha inoo qabsamay ka mid tahay sidoo kale waxyaabaha jiray gobolka waxaa jira meelaha calafka iminka lagu sameyn doono iyaduna aynu soo marnay oo wadaamago ay ka mid tahay jaleelo farmara iyo meesha laga habarheeshay marka iyaga laftoodana insha Allah waxaan rajeynaynaa inay wax soo saar badan oo calafka ay soo saari doonaan baahida gobolkan wax badan ka tari doonaan xagga calafka maxay dhahday marka xaruntuna saasay ku furan tahay oo maxay dhahday ay ku shaqeynaysaa sanadkii tegay 2022 wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland iyadoo fulinaysa kuna shaqeynaysa siyaasadda uu dejiyay wasiir Siciid Sulum Maxamed waxa sidoo kale wax qabad ballaaran laga geystay degmooyinka Gabiley Baligubadle Salaxley Dacar Buruq Wajaale iyo Dar es Salaam oo dhammaantood laga hirgeliyay dhismayaal casri ah halka kuwa hore u jirayna lagu sameeyay dayactir waxa sidoo kale la hirgeliyay dhismayaasha goobaha calafka xoolaha iyo caafimaadintooda magaalada Gabiley oo qiyaas ahaan 60 kiiloomitir kaga beegan galbeedka magaalada caasimadda Hargeysa waxa la qalabiyay dhismayaasha ama xarumaha wasaaraddu ku leedahay magaalada Gabiley daaweynta xoolaha shaybaadhkooda iyo talaalka ayaa ka mid ah shaqada aan kala joogsiga lahayn ee ka socotay magaalada Gabiley waxaana sanadkii tagay ee 2022 laga dhoofiyay magaalada Gabiley xoolo kor u dhaafaya kumanaan waxaan oo qabsanay waxyaabihii ugu waaweynaa ee ugu mudnaa ee shaqadu ku soconaysay kuwaas ay ka mid yihiin qalabayntii xafiisyada kala duwan ee xafiiska gobolka xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga gobolka Gabiley oo dhammaan xafiisyadii la qalabeeyay qodobka labaad oo ah isna qalabayntii shaybaadhka guud ee xafiiska xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee gobolka Gabiley kaasoo loo soo dhameystiray dhammaan wixii lagu shaqeyn lahaa ama ha noqdo jiinadii ama mikroskoobyadii ama ha noqdaan kidkii kale ee shaybaadh ku shaqeyn lahaa daaweyntana xoolo fara badan baan kulley daaweynaa oo isugu jira noocyada kala duwan meesiyada xoolaha sida ariga looda iyo geel intaba waxa kaloo jira iyaduna qayb aan ka wadno Wajaale oo qaybta taranka iyo calafka xoolaha kaas isaguna weli socdo oo ku dhow gabagabadii laakiin aan weli dhameystirmin dhanka kale wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga ee Soomaaliland iyadoo gudanaysa waajibka shaqo ay u hayso qaranka waxa magaalada Baligubadle laga sameeyay dhismayaal cusub halka kuwa hore u jirayna lagu sameeyay dayactir runtii halkan waxaan ku soo gudbin doonaa wax qabadkii kala duwanaa sanadkii tagay 2022 ay wasaaradda xanaanada xoolaha ka geystay gobolka Hawd kow haddaan ku bilaabo runtii waxaan markii koobaad hagaajinay dhismayaasha uu ka kooban yahay xarumaha ku kala yaala Baligubadle degmada Baligubadle iyo degmada Gumbraha dhismahaas runtii laba qol ku kordhinay xarunta gobolka ee Baligubadle ama degmada Baligubadle runtii taasoo aan ugu talagalnay inuu noqdo xafiis laba qolo xafiis midna uu yahay laboratory oo maadaama uu gobolka ku yaalo xuduudkana waxa jira runtii xanuuno waxa jira xooluhu ay iskaga gudbaan oo waxa weeyaan oo maadaama aan jaalanahay wadanka Itoobiya aan xoolaha aan u kala gooshno in mataqaana lagu xakameeyo ama lagu baadho xanuunadii in xoolaha ee kala duwanaaday deegaankeena soo galayay waxaa sidoo kale la sameeyay shaqaale kordhin si loo dardargeliyo howlaha shaqo ee wasaaraddu ay hayso waxa tababar loo sameeyay shaqaalaha wasaaraddaasi waxa la hirgeliyay xarumo caafimaad kuwaasoo looga faa'iideynayo xoolaha si loogu sameeyo caafimaadinta xoolaha iyo nafaqayntooda runtii waxaanu kala sameynay inaanu sameeyno shaqaale kordhintaas oo runtii aanu ujeedadeeda ka leedahay in gobolka laga helo shaqaale runtii xirfadooda heer sareysa oo dhakhaatiir ah oo runtii mid kasta uu mataqaana professionalkiisu meel uu ku saleysan yahay hadday ha noqoto dhakhtar laboratory
hadday noqoto waxa weeyaan full medicine amba full doctor tiro koobno amba aan isku soo ururino wax loo yaqaano community basic animal health workers oo loo yaqaano causeska amba kalkaaliyaasha caafimaad si loo dardargeliyo waxa weeyaan hawl socodka wasaaradda ee gobolka amba degmooyinka ilaa hadday noqoto heer tuulo. wasaaradda xanaanada xoolaha iyo horumarinta kalluumaysiga Somaliland iyadoo fulinaysa siyaasadda shaqo ee uu dejiyay wasiir Siciid Sulum Maxamed waxa degmooyinka Salaxley Wajaale iyo Daar es Salaam laga hirgeliyay waxqabado ballaaran oo la taaban karo waxa degmooyinkaasi laga dhisay dhismayaal cusub halka kuwa hore u jirayna la dayactiray waxa la dhisay goobaha calafka xoolaha waxa caafimaadin iyo nafaqeyn loo sameeyay xoolihii ugu badnaa